بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم والسلام عليكم. سلام كدب. ما أنت وحنا ربعنا كهلا هذا واحد لو يقان كامل سنسي عمل لي هذا درينك درينك قفك من هذا كان شن يريد درينك كسر قلع عرقة مقالك ورطة لدنك يمتك جيرك ودرينك وجيرك على مع دريميس شنتو ذا تانك بالأمر عرقة markaad midibada fiirinaydo waxaa jira saddex midib oo loo yaqaan midibada asaasiga oo casaanka iyo jaalaha iyo buluugga saddexdaa kala iyo kalarada oo dhan ka yimaadaan marka saddexdooda la isku daro ayaa waxa kalarka ama midabka aad arki karto dhan laga helaa tusaale ahaan markaa isku darto jaale iyo buluug markaa isku darto cagaar uu noqonaa jaale iyo guduud markaa isku darto orange uu noqonaa guduud iyo blue markaa isku darto purple ama violet waxay dhaan ku noqonaa marka midibadaas saddexdaas ah asaasi oo isheenu ay qabataa iyo isku darkooda wax ka yimaado haddii markaad fiiriso qaas robaadka waxay dhaan rainbow aad fiiriso guduudka ugu hooseeya la yiraahdaa purple-ka ugu hooseeya guduudka ugu sareeyo wax ka hooseeyana ma arki kartid wax ka sareeyana ma arki kartid sidaa darteed marka haddii wax lagu midibeeyo midibada aysan ishaadu qabanayn waxaa ma arki karaysa oo taama waxay ku tuseedaa araggaaga laftiisa in la qaldi karo oo haddii midibada ama nalalka qaar la adeegsado wax ku hor yiilaan arki karayn dareenka labaad ee rabeen wax ka yiraahdo waa urta waxaa jirta ur asaasi ah oo maxaa la dhahayay xayawaanka dhirta roobka wax waliba sibay udgoonay leeyihiin la dareemi karto waxaa kaloo jirta ur uu bini aadamka sameeyo waxaan isku caafiyo waxaan ismarmariyo iyadaana waxaa ogaataa markii maadaama waxaan isku caafiyo dhan iyo saabuuntii waxaa laga soo saaray shidaalka waxay ku qoraan qaarkoodna scented qaarkoodna waxay ku qoraan unscented micnaheedu ay tahay qaarna waa la carfiyey qaarna lama carfiyo kuwa la carfiyey marka maxaa la sameeyey inixda ama atomka ee maadada ka samaysneed iyaa inta ay ka samaysantahay inta la kala durjiyo iyaa wax lagu daraa sidaa darteed waxaa la dhag raayo waa dareenkaaga urta oo ur aan meesha joogin inta lagu sameeyo lada waxaan u carfaa marka taana waxay ku tuseedaa urtaada in been loo sheegi karo oo waxaan urayna ur lagaaga dhigi karo waxaan carfeyno lagu carfi karo dareenka kalena rabo waxaa waa dhadhanka macaan dhanaan qaraar dhadhan asaasiyaa jiro aad dareemi karto dhadhan kaloo waxaa jira isna dad sameeya oo hadda ramadaan lagu jiro waxaan arkaayo Soomaaliya xal qasana cabitaan la yiraahdo isku filantaas waxaa waaye hal malgacad oo buda iyo baaldi biyo inta lagu qaso macaan la cabaa marka aqalka ka shaqaysiiso hal malgacad oo sokora baaldi biyo ma macay kartaa oo may marka maxaa ku ogolaatay in kiimikadan ay wax macaynayso waayo waxaa la daraaseeyay macaankii waxa uu ka samaysan yahay hadduu ahaa HOC oo ahaa 12 nambaradaas le kor loo qaaday waxay sameeyaan marka wax loo yaqaano la yiraahdo high fructose oo sokortoo kale laga dhigayo sokorna maahan waxa la qaldayo waa dhadhankaaga marka maanta waxaan tusaale u haystaa cabitaanada waxaa la cabaa isku filan aan dhahno sokor ma baahnaa lagu leeyahay sokor meesha kuma jirto waxa la qalda marka waxaa waaye dhadhankaaga taa marka waxay ku tusadaa dhadhanka asaasigan inuu jiro mid kaloo bini aadamka sameeyeen oo ah haddaad dhadhamido aad leedahay oo wixii inay jiraan waxaa kaloo tusaale ugu filan hadda waxaa la yidhi Soomaaliya chickenka la cunaa beriga horta aniga aan joogay waqti dheer ma ahan chickinku wax qof cuni jirta ma laha haddii la cuni jirana wuxuu ahaa chicken kale oo dhala ama digaagad kale ay dhashay oo kunoo la uriyey oo kun jijiilka soo baxay jijiilka weynaaday kadib la qalay kadib la dubay hadda laakiin waxaa la bilaabay clone chicken yiraahdo oo qoladaana bilowday oo waxaa la daraaseeyay unuga uu ka samaysan chickenka waa la ogaaday balaaya lagu daray chicken waxaa soo baxay marka 6 lugood ama 4 lugood leh 2 iyo 2 si hadhowta suuqa markii la dubaayo 4 lug ba halkii digaag looga helo maxayna keentay ummadana kansar xataa Soomaaliya weligeed kansar ka dhici jira hadda ummadeena kansar ay yimid gabdhiya ay wax xamilaa loo qalooyaa waayo cunooyin beena oo dhadhanka la qaldooyo oo aan cunada ahayn laakiin arag ahaan u eg marka taan waxay ku tuseedaa dhadhankan in la khaldi karo
midda kale oo kagu soo waxaa waa dareenka jirka midka ah kaana si guudan u wada fahansanahay la khaldi karo oo waxaa ku tusayso dadka marka la qalaayo operationka la samaynayo iyo dadka ilkaha laga saarayo markii la samaynayo waa la kabaabiyaa taa marka waxaa arkay qofkii la furaayo feerihiisa haddana aan dareemayn ma dareenkii aa maqan may isagiyaa la qalday dareenkiisii aa la qalday waxaa la kala sikiyey unugyadii xogta gudbi lahaa ee maskaxda geelaha la kala sikiyey soo waxaa inta ka dhacaya inta kama warqabto sidaa darteed taana waxay ku tuseedaa dareenka jirkaaga xitaa in loo been sheegi karo marka horta waa fiiri ama dhadhan maqal ur arag dareenka gudka uma baahna inta iskuul aado aad soo barato sokorta inay macdahay cusbada inay dhanaan tahay iskoolna tagti inaad soo barato ma baahnido waa dareen aad adiga lahayd kii aad adiga laheeda haddana inta la daraaseeyaa waxaa la ogaaday in waxaan isaga ahayn inta lagaaga dhiga haddana sida uu kugu dhadhama ama sida kuugu uraa ama sidii uu kuula maxaa la dhahayay aad u dareemeen taa marka waxaan joognaa waxaa waa common sensiga oo ahaa shantan waxaa kaloo jira common sense ama yacni dareen guud oo kaloona intaa aan ahaynoo ah qaabka waxbarashada oo warbixinta cilmiga siyaasadda wax kastoo lagu akrinaayo iyaguna qaara lagu leeyahay waa dareen guud waayo marka haddii kii aan la bara jirin asaasiga ah la bedeli karo kaana waa la bedeli karaa oo maanta waxaa arkayda Soomaaliyeed aan nahay weliba hadda waxbarasha lagu wada mashquulayo Soomaaliya waxaad arkayda jaamacadaasaan dhigtaa jaamacadaasaan waxbarashada aad u badatay maalinka aan Soomaaliya Muqdisho kasoo tagayay horta loo jaamacada ku tiiri haddase waxaa ku taal 500 oo jaamacado dadka ma aqoon yahanay noqdeen may aqoonta hoos u sii dhacday maxaa kale isbitaalada oo kale markaan Muqdisho kasoo tagay hal isbitaal ku yaala xaafadeena hadda 30 isbitaal ku taal caafimaadka ma sii kordha may hoos u noqon sababta maxaa waa meesha wax dhacayo waxay tahay horta aqoon oo dhan markii laga tago macrifatillah aqoonti kale oo dhan waa dad sameeyay oo nin adoo kala samaystay ninka markuu sameeyay sida uu nolosha u arko oo ku dabaqa aqoonta uu ku adeegsaday noloshiisa ku dhistay iyada markaan inta turjumno marka af Soomaali aan ka dhigno waxay la macno noqonaysaa adoo hees xabashi ama hees hindiya xifdiyo kale waxa laga hadlayaa inaan fahmo sababta waxaad ku ogaanay waxaa jirta sheeko kaamil iyo qasqas ay sameeyeen oo nin turjumaan iska dhigaya wuxuu leeyahay qolada cadaanku uu sheegay wuxuu leeyahay kii kale ka turjumaa wuxuu leeyahay xaaskayga waan furay because I opened my wife because she cut my leg xaaskayga waan furay way lu goynaysay erayadii Soomaaliga ah oo sidoo Ingiriis uga dhigay qofka Ingiriisku ku hadlaa I opened my wife because she cut my leg ma fahmaayo marka horta anaga aqoontina loo keenay saasana loogu turjumay oo arkayda maanta midii la dhashay high school ka dhigtay Soomaaliya wuxuu ka shaqeynayay aljabra dadkan u galxaanay maxaad ka shaqeynay aljabra itus waxaan arkay f of x 2 times 6 equal a harni waxaan tameel iska dhigtay horta f of x waxaan waxaan ku fiirdaa maanaboli iyo siinay wax macna ka ahmeeyay aqoonta marka anaga dad Soomaaliyeed waxaan u qaadanay anagoo maxaa la yiraahdaa meersanayso kaliya laakiin waxa awood u leedahay inaad aqoonta u qaadato tusaale ahaan marka relativity aragta inaad fahanto waxa ka aqrin Ingiriiska Albert Einstein ki sameeyay la fadhiisaba sidoo asagu u fikiraayo ummadda uu ka soo jeedo kale u fikir waxaad fahmaydaa markaas sida tacliin iyo wax kasta la barta aan ummadeena iyo dalkeena ku hagaaji karno laakiin waxaa jirto mar haddii maskaxdaada xabsi geeyo lagu xiro weligaa ka soo bixi maysid oo dhib aan jirin markaan ku iraado aniga aan heshiin haddaan ku iraado weligaan heshiimeen sababta ma taqaanaa laba isdagaashaninba marka dhib aanan jirin aan marka hore kuu sheego kula xalkiisa raadi weligaa ma xalli kartid waayo dhibkiiba ma jiro marka common sense ama waxa naloo sheegay Soomaali barbalamada waxaan dhan naloo akhrinayo horta hore maxaa ka runa mawluuqad kale naloo turjumayo aan fiirinoyna bas waa wax sax ah oo fahamkeena ku jiro waxaa la yiri nin tuug ah oo irda furistay sanaadiiq sidoo for active ku ah yaa qolada dawladda u yeertay xeereen weligiisu xabsi aan ku geynayna qolal ugu xiraa hatta qolkaas iridiisa iska soo furto noloshaada inta ka dhiman lagu xiri maayo mushaar waa lagu qoraa hadda laakiin iska soo furi weyso waa xabsigaaga waa ogolo hooyo tuulkayga iyo alaabahayga ma qaadan karaa qaadani boxkiisa oo qaata qolkii seelkii la geeyay waa lagu xiray irida laakiin lama xiro waa loo laabo kaliya waxaa la iska soo furto aday ku taalaa biri yar yaraaw irida geliya
كشقيلة إريد فرن ما تفرق كرتا إريد مركي حرنت هتفرق كرتا نكان سوم إريدو تضبط مع الموضوع مركو كشقينا يسدي ويحور مفرق كراي مركا سألين هذا إريد ما بحرين مركا هرتا ورا حدان إريد أنا الحرين عصودين نافر إريد ما بحرين مركا حدان دب أنا النهيسن بروبلم النهيسن عصودين أنا نحل محل كرنا وايو كامن سنسي أم شنت الدرين مودا جيركا على خلدي كرا كي كلو ايديولوجي هانو فكر هانا أصلا خلد اللي شيء كرا هذا في فرنسيس كدلك اللي يرادو مركي وحترين عيان نمبر كود اللحظة المضافة سيقول ذا اللحظة مركي تجان وحكة بدل مية قانع عالم كي عيار كانوا لها تضباطن سيديتن سجاشن ترسنايو سي عالم كله عالم حي سمين مركي لحظة كود وحيد عن سوسان لحظة كوا سوسان تضباط مركي ده مركي كلين سوسان ديس لحظة هي طبعا ديس وطبعا مركي كلين سوسان ديس واللحظة هي طبعا سيديتن كلين كانوا أفرع إيفان ولا باتنا كاترفاني كلين أفر لباتنا سجاشن كلين كانوا أفرع فان ولا باتنا يديس وطبعا كاترفان ديس كلين أفر لباتنا هي طبعا الفابيت كود مركي آخرنا يدو كلين وايد مركي جاران أما يأذن كلين إيجري أو إيدي غريغ marka caanu geero Faransiiska markuu alfaabeetka baranayo way meesha markuu gaaro yaad oo gaaro ya ay taala dhimay xalliya waa iidi aan Greek kala nimid soo maxay diyaarinay qofkaas waxay diyaarinay asagana jiritaankiisa uu fahmaa qolo kale inay jirtaan uu fahmaa naga aqoonta iyo riwaayadaha aan soo aqrino umad kale aan fahnaa taana waxa way awood garaado forta way haddaad awood u yeelato umad kale cilmi ee qoran la fahmi karto adoon adiga aan fahmin marka waxa aan baraarujinaa wax kala maaha waxaan baraarujinaa waxay tahay horta wax kastoo naloo sheegayo yaan xalkiisa raadinay horta waxa maruna aan hubino marka runtiisa helno haday aqoon ahayd yaan la turjumin hadii la af Soomaali laga dhigo macna ma sameynayna laakiin fahamka ay tacliintaas sido hala turjumo oo hala fahmo hadaan siyaasadda rabno inaan xalino hadaan rabno dalkeena wax ka qabanno yaanan turjumin waxaad arkaydaa dawlad iyo maamul iyo siyaasi aqoonyahan oo barnaamij oo nin cadaan ah soo qoray af Soomaali inta ka dhigo ummadii uu akhrinayo qowmiyad jirtaan dad jiraan waxyaabo badan oo lagu sheegay waxa jiraan isku dayayna inaan xalino namana qusayso way dhib ma marka waxaan baraarujinaa waxay tahay yaan la fiirin waxaan yaan la turjumin fahamka hal turjum